markii qof walba fariistay Mrs. Warlick waxay soo bandhigtay Raymond iyo kaaliyihiisa Amanda. labadooduba waxay hortooda ka soo muuqdeen martida. isla markii uu yimid Raymond wuxuu sheegay inay goobta ku jiraan dad aan la casuumin. markaas Mrs. Warlick waxay Detective Clockneer u soo bandhigtay inuu yahay saaxiib qoyska ka tirsan oo lagu magacaabo Kalmir. anigana waxay ii soo bandhigtay haweeney ruuxiyada xiiseesa oo la yiraahdo Shushu. kadib Raymond wuxuu bilaabay xafladiisii qarsoodiga ahayd. isaga iyo Amanda si tartiib ayay ugu dhex socdeen martida. hal mar Amanda ayadoo aan ogeyn ayay ku istaagtay balaastigii aan dhulka dhigay. Butuco ayaa isla markii baarintaas u sheegay Carly iyo Gabby. labadoodaba si qarsoodi ay dabaqa sare u aadeen. waxay baareen boorsadii Raymond. halkaas ayay ka heleen in magaciisa dhabta uu yahay Atto Bersac. dhanka hoose Raymond wuxuu si taxaddar leh ugu fogaanayay inuu ku istaago balaastigii dhulka yaalay. isagoo iska dhigay inuu galay xaalad ruuxi ah ayuu sheegay inuu fariimo ka helayo ruuxa Herman. laakiin si lama filaan ah dhibaato qosol badan ayaa dhacday. Butuco wuxuu cunay cunto afakaadho ah oo aad u badan. taas ayaana calooshiisa si xun u xanuunjisay. wuxuu si degdeg ah ugu orday musqusha dabaqa sare. waxir kadib waxaa gudaha musqusha ka soo baxay buuq aad u weyn. buuqaas ayaa hakiyay xafladii oo dhan. Raymond isla markii dhulka ayuu isku tuuray wuxuuna si rawaayad ah u sheegay in tan ay tahay calaamad ka timid dunida ruuxida. muddo yar kadib ayuu mar kale istaagay. ugu dambeyntiina wuxuu ku istaagay balaastigii aan dhulka dhigay. markii aan taas arkay gudaha ayaan si qarsoodi ah ugu farxay sababtoo ah qorshahayga si fiican ayuu u shaqeeyay. laakiin Detective Clockneer ayaa arkay dhowlacadiinteeda. waxaan si degdeg ah ku marmarsiyooday. waxaan u sheegay inaan ku faraxsanahay in Raymond uusan waxba ku noqon. markii howlgalkeenu dhammaaday ayuu Butuco noo sheegay inuu guuleystay. kadib qof walba jidkiisii ayuu u dhaqaaqay. markii aan ku laabtay dugsiga hoyga fiidkii waxaan aqriyay buug ka hadlaya farsamooyinka Shaalon. subaxdiina waxaan bilaabay inaan ku tababarto qaar ka mid ah farsamooyinkaas. daawadihii sharafta leh muuqaalkan oo dhammaystiran waxaad ka helitaan YouTube-kayga. hana iga ilaawin inaad subscribe ii saarto muuqaalkan aad la gareyso. mahadsanid. wixii faala ahna halkaas inoogu reeb daawasho wacan.